rabaa inaan warbixin kooban idinka siiyo manaal qurux cosmeticska oo aan caawa daafurkeeda aan u joogno. waxaan rabaa dhowr arrimood inaan faahfaahin idinka siiyo. midda koowaad waxay tahay manaal qurux magaca maxaa loola jeedaa, cosmeticska ay ka shaqeynaysana waa nooceeyo. marka koowaad magaca manaal waxa loogu bixiyay waa gabadhayda yaraanteeda waa. marka taas waxa dareemaysaa gabdhuhu inay qiimo gaar ah ay noo leeyihiin. midda labaad manaal qurux cosmetics maxay kaga duwan tahay cosmetics-yada kaleeto ee hadda dalka ka jira, taasaan rabaa inaan idin fahamsiiyo. si aad taas u fahamtaan waxaan rabaa laba arrimood inaan idiin sharxo. ereyga cosmetics marka la yidhaahdo laba macno ayaa hoos yimaada waa. labada macno hoos yimaada midka koowaad waa waxa loo yaqaano personal care-ka wax la yidhaahdo ama daryeelka shakhsiyadeed ee qofka uu leeyahay waa. the second ereyga cosmetics waxaa hoos yimaada waxa loo yaqaano skin care-ka. marka labadaas uu ka kooban yahay daryeelka personality-ga qofka iyo daryeelka skin-ka waa. marka xaruntan waxay ka shaqeyn doontaa daryeelka labada qayboodba oo ah midka personality-ga si loo daryeeli lahaa iyo midda skin-ka si loo daryeeli lahaa. qodobka labaad oo muhiimka waxay tahay waxyaabaha cosmeticska laga sameeyo waa laba nooc waa. nooc waxay noqdaan waxyaabaha loo yaqaano natural resource-ga waxa la yiraahdo. natural resource-ga waa waxyaabaha loo yaqaano organics-ka la yiraahdo. nooc kale waxa laga sameeyaa waxyaabaha loo yaqaano chemical resource-ga la yiraahdo. marka xaruntan manaal qurux cosmetics adeegyadeeda waxay ka samaysan yihiin intooda ugu badan natural resource waa. waana sababta ay uga duwanaan doonto cosmetics-yada kale ee dalka ka jira oo ayaga productigooda inta badan ka sameeya chemical resource-ga. haddaba natural resource-ga iyo chemical resource-ga farqiga u dhaxeeya waxay tahay natural resource-ga waxaa yar side effect-yadooda way yar yihiin waa marka lala barbar dhigo chemical resources-ka. waxaa kaloo rabaa inaan idin fahamsiiyo marka laga hadlaayo dadka iyo maqaarkeena marka la rabo in la daweeyo dabcan daweynta saddex nooc waayo. nooc waxay yidhaahdaan traditional medicine la yidhaahdaa waa dadka in habdhaqan loo daaweeyo. nooc kale waxaa jira modern medicine la yidhaahdaa waa medicineka casriga ah ee dhakhaatiirta jaamacadaha ka soo qalinjibiya iyo isbitaalaadka ay ka shaqeeyaan. nooc saddexaadaa jira waxaa la lahaa herbal medicine la yidhaahdaa. marka manaal qurux habka adeegyadeeda ay ku salaysan yihiin ma aha traditional ma aha modern medicine, waxay ku salaysnaan doonaan waxa loo yaqaano herbal medicine oo hoos imaan doonta waxyaabaha natural resources-ka oo aan lahayn wax kiimika ama side effect ah. maadaama shirkadda manaal qurux cosmetics ay xoogga saari doonto natural resources-ka ama organics-ka, maxay tahay adeegyada ay diyaarka u tahay inay qabato. adeega ugu horeeya oo ah adeega baahidiisa ay jirto oo ah saliidaha laga isticmaalo tinta. saliidan oo hadda productigeeda qayb ka mid ah ay taalo aan rajaynayo tijaabi nasiibka in dadka qaarkood ay caawa ku qaadan doonaan si free ah ayaga wax lacag aan laga qaadin. adeegaas oo saliidda tinta ah saddex qolo way adeegsan karaan, waa caruurta, haweenka iyo ragga si same ah ayay u isticmaali karaan because productiga marka la sameynayay dadka baahidooda ayaa loogu talagala waayo. marka inaysan baahidu kala duwanaanin oo qayb kala noqoto waayo. saliidani maxay qabanaysaa waayo? waxyaabaha ay qabanayso dhammaan waa wax leh damaanad leh waayo. qofka marka laga salis gareeyo ama laga iibiyo haddii 3 weeks uusan wax isbedela dareemin xaq wuxuu u leeyahay in lacagtiisa dib loogu celiyo waayo bilaa shuruud la'aan. waxyaabaha ay qabanayso waxaa kow ka ah
qalleelka tinta inay xaliso dabcan dumarka way yaqaanaan tinta ciladaha haysta waxa ku ka qalleel inay leedahay qalleelkaas way ka xalin doontaa waxay kala xalin doontaa ciladaha ugu daran oo anaga aan daraasaynay inta aan la soo saarin waxa ku ka daadashada tinta oo raguna ay qabaan dumarkuna ay qabaan waxa kale qayb ka waxa loo yaqaan aflaaqada oo dumarku aad u yaqaanaan laakiin ragga aysan aad u aqoonin waxa kale ay saliidani ay qabanaysaa tinta dadka qaar waxay ka tahay cadcadaad markuu isticmaalo maxay tinta u dhalinaysaa madow qurxan ay u soo saaraysaa waxa kale tinta ay u sameynaysaa haddii tinta ay yara adag tahayna waxay u sameynaysaa jilcin oo aan xaddaaf ahayn waxa kale tinta ay u sameynaysaa haddii aysan lahayn growth ama koritaan ama bixid la'aan haddii jirtana waxay ka qayb qaadanaysaa sidii tintaas ay bixitaan ay u heli lahayn oo dhammaystiran waxa kale muhiim oo saliidan ay wax badan ka taraysaa haddii qofka uu qabo waxa loo yaqaan dandrafka ama agoolka wax la yiraahdana way ka nadiifinaysaa haddaba marka saliidani maxaa laga sameeyay saliidani waxa laga sameeyay 3 shay oo hal meel isugu keenay dadkana saddexdaas shay waxa laga yaabaa mid kasta in qiimo gooni laga siin lahaa laakiin anagoo fiirinayna duruufaha dalka ayaan saddexda adeegba one item aan ka dhigno saddexda adeeg maxaa ko saliidda waxa ay ka samaysan tahay oo organic ama natural oo ko labo waxa kale jaanis fitamiinaadka tinta oo ayagana aysan qarash kale uga bixinin oo ka dhaxilaayo midda saddexaad oo muhiimka waxay tahay nafaqada marka qofka uma baahna nafaqa inuu lacag ka bixiyo uma baahna inuu fitamiinka lacag ku bixiyo saliidda organic ay ugu wada jirtaa marka saddexdaas shay oo hal meel isugu keenay ayaa qofku ka faa'iidi karaa marka uu gato uu qaato adeegaas waxa kale la mid ragga kuma badna laakiin dumarka ayaa aad ugu baahan waxa loo yaqaan sunniyaha ama waxa la yiraahdo eyebrow wax la yiraahdo marka gabdhaha qaar tintooda sunniyaha ku yar marka tinta sunniyaha gabdhaha inta badan waxay adeegsadaan inay soo adeegsadaan waxyaabo soo saaraya laakiinse isla saliidan markaad isticmaalayso uma baahanaysid inaad sunniyahaaga wax kale ku koriso isla saliidaas ayaa ku korinaysa maadooyinka caawinayna way ku jiraan marka qarash kale dheeri kaaga ma baahna isla sunniyaha bixidoodana qayb kale ku leedahay waxa kale jirta oo hadda aan mar dhow furi doonaa saliid kale oo gooni oo aan ahayn saliidda tinta madaxa saliidan waxa loo isticmaali doonaa dadka sheegta waxa loo yaqaan migraine headache wax la yiraahdo migraine headache waxa la dad waxa jira madax xanuun daran qaba jira oo neerf xanuun daran uu ku keeno marka waxa jirta saliid u gaar oo aan ugu talagalnay in dadka madax xanuunka daran haya loogu daaweeyo ayadana waxay noqonaysaa saliid kale oo u gooni waxa kale qayb ka adeegyada la bixinayo oo asal u Manal Qurux Cosmetics oo shirkadaha kale ugu doonaan doonto dadka qaar waxa laga yaabaa inay dib ba'an ku qabaan waxa loo yaqaan cirada ayadana waxa haynaa daawo gooni oo organic oo ka baabi'inaysa ama ka suulinaysa cirada waxa kale qayb ka adeegyada Manal Qurux Cosmetics ay qabanayso haweenka dabcan waxa ku dhaca cudurro xagga infectioniska la xiriira qaarkood marka isbitaalaadka ay tagaan oo habka daaweynta way ku daalaan marka waxaan siin karnaa oo u haynaa daawooyin ka xalinaya infectioniska qaybahooda kala duwan oo aan ahayn wax chemicals oo organic sidoo kale waxa qayb ka dadka qaar waxay aad u dalbayaan nidaamka loo yaqaan iscaateynta dadka qaar laga yaabo inay aad u cayilan yihiin marka iscaateyntana ayadana qayb kamid ayaan haynaa oo loogu talagalo sidoo kale waxa jira daawooyin loogu talagalay ragga ciladaha ka haysta oo cilad waayahan dam aad soo badatay waxa la yiraahdaa premature ejaculation la yiraahdaa qofka markuu guursado caqabad wuxuu la kulmaa in biyo bax degdeg uu qabo oo reeraha qaarkood ay ku dumaan dadkaas biyo bax degdeg qaba waxay isticmaalaan daawooyin
kiniiniyaal ah ama waxyaabo kiimikaalis ah marka ayaga waxaa siin doonaa waxyaabo aan kiimika ahayn oo ayana organic ah sidoo kale waxaa qayb ka ah haweenka raba inay uurka qaadaan waxay u baahan yihiin hanaan uur qaadis sax ah inay sameeyaan waxaa jira daawooyin ka caawinaya hanaanka uur qaadistooda hadday tahay rag iyo hadday tahay xagga dumarka sidoo kale waxaa jira dumar raba inay aroos galaan waxayna loogu talagalay sadka arooska dumarka oo ayagana khaas u ah oo loo diyaarin doono intaas waxaa dheer oo ayadana meesha aan laga saari doonin maadaama waxa laga hadlaa yihiin waxyaabo caafimaadka iyo daryeelka qofka qaybka ah waxaa heli doontaan wacyigelin caafimaad oo ku saabsan qaybaheeda kala duwan sidaa darteed adeegyadaas shirkadda qaabkee bay ku talagelaysaa inay ku qabato ama ay ku gaarsiiso dadka qaybahooda kala duwan dadka muqdisho ku nool adeegyadaas waxay ku gaari karaan inay ka soo dooran karaan dukaanka oo hadda qalabayntiisu ay socoto qaarkood waxay ku soo gaari kartaa ayagoo gurigooda jooga in si delivery oo free ah loogu soo gaarsiiyo dadka ku nool gobollada kala duwan ayagana waxaa lagu gaarsiin doonaa hanaanka kaargowga dadka ku nool dalka dibaddiisana waxaa loogu gaarsiin doonaa hanaanka kaargowga ama hanaanka DHL-ka loo yaqaano dabcan shirkad kasta oo daafur samaysata waxay leedahay xarumo ama waxyaabo la adeegsado waxaan rabaa inaan caawa idin fasaxo wixii caawa ka dambeeya inuu furan yahay nambarada macaamiisha loogu adeegi doono shirkadaha Hormuud iyo Somtel waana nambaro isku mid ah oo aan lagu wareeri doonin nambarka koowaad waa 3918 eber hal nambarkaas waa nambarka koowaad isla nambarka labaad waa 3918 eber labo labadaas nambar ayaa laga isticmaali doonaa adeegyada shirkadaha Hormuud iyo Somtel WhatsApp nambarkana hal nambar oo kaliya laga isticmaali doonaa waa 3918 eber halka sidoo kale waxaa daah furan oo haddaba aan idinka codsanaynaa inaad like garaysaan noo follow garaysaan share-kana aad noo siisaan TikTok-ga oo ay ku soo bixi doono Facebook-ga iyo YouTube-ka iyo Snapchat-ka iyo Instagram-ka dhammaantood hal magac ayaa lagu adeegsanaa oo ah Manaal Qurux Cosmetics waxaan rajayn doonaa insha Allah inaad nagu soo dhaweyn doontaan daafurkeena shirkadda la daafuraayo oo ay qayb ka noqon doontaan sidaa darteed ugu dambeyn waxaan idin leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada haddaad tihiin dadka wax bartay ehelka tiktokeriska youtuberiska warbaahinta bangiyada dhammaan waxaan idin leeyahay soo dhawaada kuna soo dhawaada Manaal Qurux Cosmetics oo ah xarun ka duwan xarumaha cosmeticska oo si gaar ah uga heli doontaan waxyaabaha organicska ama natural resourceska ah waxaan rajayn doonaa insha Allah in sanadkiisa bashbashi barwaaqo aan halkan isugu imaan doono aad u mahadsantiin